madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in dalka gabi ahaanba laga cirib tiray cudurka halista ah ee dabaysha warkaasina waxa inoo faahfaahinaya wariyaheena Cali Baashi Cabdullaahi waxa uu ahaa dhawaq farxad badan in hooyooyin iyo caruur badan oo ku nool Soomaaliya oo walwal uu ku hayay cudurka dabayshu ay maqlaan in dalku uu ka xoroobay cudurkii dabaysha kaas oo si rasmi ugu dhawaaqay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ka qayb galay munaasabad lagu maamusay ku dhawaaqista in Soomaaliya laga cirib tiro cudurka dabaysha taas oo lagu qabtay dugsiga tababarka booliska ee General Kahiye farxad iyo inaan kala soo qayb galo munaasabadan lagu xusayo inaan dalka laga helin qof qaba cudurka dabaysha 3 sano ee la soo dhaafay in laga waayo dalkeena waxa keenay dagaal wada jir ah oo lagu qaaday cudurkan dilaaga ah kaasoo soo bilowday sanadihii 80yadii runtii waa guul noo soo wada hoyatay maanta dowladda federaalka Soomaaliyeed waxa ka go'an inay joogtayso dadaalada lagu ciribtirayo loogana hortagayo cudurrada dilaaga ah oo ay dabayshu ka mid tahay sida ku cad qorshaheeda horumarinta dalka wasiirka caafimaadka iyo arrimaha bulshada dowladda federaalka ah Dr. Fuusiye Abikar Nuur ayaa sheegtay in muddo uu socday dadaalka lagu ciribtirayo cudurkaas kaas oo ay door fiican ka qaateen shaqaale badan mashruuca polio ee dabaysha laga bilaabo 1999 wuxuu sameeyay dadaal aad iyo aad u weyn iyadoo xaaladaha wadanka jira inteena badan aan wada ognahay waxa sameysmay shaqaalihii ugu badnaa ee mashruuca uu leeyahay ha ahaadaan kuwa shaqeeya hay'adaha WHO UNICEF iyo hay'adaha kale wasaaradda kaalmeeya ha ahaadaan wasaaradda iyo sida hore loo sheegay xitaa magaalooyinka tuulooyinka miyiga waxa sameysmay shaqaale isxilqaamay fahmay dhibaatada cudurka uu leeyahay go'aanna ku gaaray inay la dagaalamaan faa'iidadii maanta aan hayna alxamdulillah shukr rabbil caalamiin waxaan rabaa oo kale inaan hoosta ka xariiqo shaqaalahaas faraha badan inta badan waxay ahaayeen haween madaxweyne Farmaajo ayaa muddo kooban waxa uu la qaatay kulan madaxda ka socota hay'adaha qaramada midoobay uu hogaaminaya agaasima goboleedka hay'adda WHO kuwaasoo madaxweynaha u soo bandhigay dhinacyada ay rabaan inay ka caawiyaan Soomaaliya ku-xigeenka ergeyga gaarka ee qaramada midoobay arrimaha xiriirinta bini'aadanimada ee Soomaaliya Peter Diclery ayaa sheegay in ciribtirka cudurka dabaysho ee Soomaaliya uu ku yimid iskaashi dhexmaray dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed iyo hay'adaha bahwadaagta la ah madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa ugu dambeyntii uu shahaado sharaf guddoonsiiyay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta ka socotay qaramada midoobay ee dadaalka galiyay sidii cudurkan looga ciribtiri lahaa wadanka Soomaaliya maanta waxaan u dabaaldegaynaa sanadkii 3aad oo uusan Soomaaliya ka jirin cudurka dabaysha waa guul soo hooyatay waxayna cadeynaysaa xilkasnimada hoggaanka dawladda Soomaaliya iyo shacabkeeda iyo sidoo kale caawinta waxtarka leh ee saaxiibada sanado dhowr ah oo dalkan laga sameeyay talaalka cudurka dabaysha oo qayb weyn ay ka qaateen howlwadannada caafimaadka ee dalkeena iyo hay'adaha qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha caafimaadka ayaa sababtay in Soomaaliya ay soo xirto bagi ay ku qori jirtay dhimashada caruur fara badan Cali Baashi Cabdullaahi warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho